زاهر بن حرام رضي الله عنه صحابي اللي أورنجري مقالة المدينة ميجي قدقنا markuu miiga imanayo magaalada uu soo socdo hadiyadaha miiga laga soo helay buu nabiga u keenay jiray hadiyad canaha ama subaga ama malabka ama hilibka waxyaabo nabiga u keenay jiray sallallahu alayhi wasallam markuu isaguna magaalada Madiina oo ka caraabayo reerkiisa ku noqonayana reemigu waxay magaalada uga baahdaan buu nabigu markaa isagana u diyaarin jiray طبعا dadka reemigu magaalada maxay ka qaataan sokor iyo saliid iyo bariis iyo zamankana wixii miigu magaalada uga baahan yihiin ayuu nabigu magaalada Madiina uga diyaarin jiray marka buu nabigu oran jiray inna zaahiran baadiyatuna wa nahnu haadiruhu ba nabigu oran jiray alayhi salatu wasalaam ninka zaahira wa reemiga yagi anaguna reer magaalkiisi baan nahay rasuulku oran jiray waliba nin wuxuu ahaa ضعيفة مسكينة ريمي مقالة مدينة مركا قاركود السقين رسولك أيا مسكينة دحلية انتي كو هرام بكو شاكي سنجرين مركا أبو النبي ميقا نولاش ميقو كوري سنة يكون رغمان وحي يكون رغمان عادات كوغا مالين مالمها كميدا نكا زاهر النوع عاسر الباديها وصول لغيي الريمي وصول لغيي وادقران كرتا مارك تاني نقص كجرقي سكسو بحايا ayaa magaaladii Madiina suuqeedii buu iska tagay badeecadu markaa watay waxbuu markaa u iibgeeyay waxna uu ka iibsanayay suuqa markaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam suuqii Madiina nabigu soo galay wuxuu arkay ninkii zaahir oo meesha fadhiyo sii jeedo wax gadanaya markaa buu nabigu xagga dambu ka istaagay leena labada indhood buu nabigu qabtay markaa buu war adoonkan aniga ayaa iga gadan oo iga iibsanaya زمانك الضمان اللي يبنجر موقتها ميلها قاركود وجرين وحيابا شريعة إسلامكو أي هرمرك أي شريعة إسلامكو عالمك أوكنت وحا كمدا الضميه اللي يبسنجري دين إسلامكو حريسة وحي وردن أو بابيسي مركاسو ننكي وعروضي مركا إلا ننحر أو عربية ولليه والضون إياه قدانا يبسنجري وحناقي مركا مرالي مركو دريم عدة قداشي ستاقن إني تاي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لأنا قعدت نبي محمد قعمها ويكدوني أنس بن مالك وخادمك نبي جناها وكيلها ما تابن بويد مروح حريرة وكجل عسن كفك نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما نورين بويد عرفك أتقوم بدن عرفك جرك نبي محمد كسو بحايا إنك مالنتي مقالة مركادو دعدي سوقات كسو نغنيسو adigoo maaragtaana khamkhamaya soo noqonayo oo dadna dharka markaa waad iska bedelaysaa walaakiin nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam mar alle markuu dhididaba jirkiisa isaga udgoon ba ka soo baxaya jirkiisa udgoon mar alle markuu arkay gacantan inay tahay gacantii nabiga jileeca arfiga soo baxaya uu yahay arfigii udgoonkii jirkiisa ka soo baxaya markuu gartay inuu nabi maxamed uu yahay shakhsigan ayuu dhabarkii nabiga markaa ayuu dhabarkiisii nabiga ku xamaaray laabtiisii markaa buu yaa rasuulallah oo haddii aad tiraahdo adoonkaygii weeyaan han iibiyana aniga ayaa iga ka iibsanayay buu nin faqiira oo miskiin oo reer baadiye ayaan ahay buu ka bixi maayo la iga ka iibsan maayo buu ku yiri markaa buu nabigu isku sii dhajiyay isaguna markaa buu yiri lasta bikaasidin matihid shakhsi qiimo hooseeya بل أنت عند الله غالب النبي كويري وحاتهي شخص إله تسقيمه ويكون تايب النبي كويري فرمي كم ميزان النبي ودركيسة ماشي ودقين يحي وعو النبي كم ميزان يا قف كان إيمان كيسي عمل كيسي ونكسن وواحد برنامج كيسي على قيمة أمية لان adiga waxa gudahaaga ku jiroon ba ama qiimo ku yeelaya ama qiimahaaga dhulka gelinaya ogow waxa dibadda inaga yaala waa maxay
warshadu qofka bini'aadanka bannaanka ka taallaa, gaadhigu qofka bini'aadanka bannaanku ka yaallaa, lacagtu qofka bini'aadanka bannaanka ka taallaa, daarihiisu qofka bini'aadanka dibadda ka yaallaan, xoolihiisu qofka bini'aadanka bannaanka ka yaallaan. wax gudaha kaga jira maaha. waxa adiga bannaanka ka yaalla qiimo kuma yeelaye, waxa bannaanka ka yaalla adiga qiimo u yeelaya. lacagta meennaka qiimaha u yeella misayada qiimo inoo yeesha. bal si fiican uga jawaaba. laakiin zamankeenan maanta eeg, qofka bini'aadanka maxaa lagu qiimeeyaa maanta? lacag baa lagu qiimeeyaa. lacagta innaka qiimaha u yeellay. dad baa ka fadhiistay, dad xil loo dhiibtay oo talo ummadeed loo dhiibay ayaa intay ka fadhiisteen bay yidhaahdeen maxaa wax ku kala gadanaa? markaasay yidhahdeen lacagta noocaasa wax ku kala iibsanno. deedna markaasaa lagu qoray tanna 100 shilin, tanna 1,000 shilin, tanna 5,000, tanna 10,000. 30 sano ka hor lacagtii waddankan ka shaqaynaysay ma ka shaqaysaa Hargeysa maanta? kama shaqayso. sababta waa maxay? waa laga guuray, dadkiibaa ka guuray tii oo tan kale qaateen. marka lacagta innagaa samaynay, nambaradana innagaa ku qorannay. adigaa markaa lacagta qiimo u yeelaya. lacagta adigaa sitay iyada kuma sidato. laakiin qaladka maanta bini'aadanka ka dhacay waa maxay? lacagtii baan bini'aadanka ku qiimeynaynaa maanta. daartaa ku qiimeynaynaa. daarta adaa dhisay. daartu qofka bini'aadanka ma dhistay, isagaa qofku daarta dhisay. gaadhiga qofka bini'aadanku ma wadee, isagaa gaadhiga wata. gaadhi baan soo wataayo meel heblaayaan soo marayaa baad odhanaysaa, mise gaadhi baa ay wada baad odhanaysaa markaad sheegayso tilmaamta? gaadhi baa ay wada mise gaadhi baan wataa? gaadhi baan wataa. lacag baa isida mise lacag baa sitaa? aqalkan anaa dhistay oo aqal baan dhisayaa mise aqalka aniga ay dhisaya? wayna fahamnaa. waxaan materiaalka la yidhaahdo ashyaada bini'aadanka qiimo uma yeelayso, bal bini'aadanka qiimihiisa dhulkay gelisay. dhulka maanta maalin dhaweyto magaalo gobollada dhexe ku taalla, muddo imika 2 bilood 3 bilood laga joogo, ayaan diyaarad ka raacay. xamar baa ku socdaa. nin baa isoo ag fadhiistay. markaa ninkan waa nin xanuunsan, mara ku duuban, saasuu markaa kursiga ugu tiirsan yahay. nin walaalkii oo la socday baa yimid oo igu yidhi, sheekh ninkan dhaawac baa gaadhee u ducee. markaasaa idhi waa insha allah, allah inoo shaafiyo, waan u ducaynay. markaasaa idhi maxaa gaadhayo? madaxa markii marada laga qaaday faas baa lagu googooyey. faas xagga minallahi inbuu ka baxay. markaasaa idhi war qofka sidaa u dilay muxuu yahay? muxuuse ninkani sidaa ugu dhintay? wuxuu awruu isagu lahaabaa awruu nin kala lahaabuu ka cunay buudi. ninkii awrka kale la cunay lahaa ayaa ka nafaas ku googooyey buudi isagoo hurda. waa waxaan indhahayga ku soo arkaan idiin sheegaya. halkaan maanta marayno dadnimadeennii. 2 awroo islaysay ayaa qof bini'aadana qudha kaga jarayaa maanta. halkaan marayna baleeg. waa bashar, bani aadam. khalqiga kaloo dhan ilaahay abuurkooda markuu sheeganayo, ilaahay waa ka yidhahda walaqad khalaqna asamaa'a waalarda wamaa baynahumaa fii 6 ayaamin wamaa massanaa min luguubin. wax kastoo ilaahay abuurkooda markuu sheeganayo khalaqnaa buu yidhahdaa. laakiin aadam calayhi salaam abuurkiisa markuu ilaahay sheeganayey, daatadiisaa ilaahay u nisbayo wuxuu yidhi khalaqtu biyadaya. khalaqtu basharka qiimahaa leh ayaa maanta adduunka dusheeda halkaasay marayaan. muslimiinta ka warrama qiimo dhaca. awr cunay in qof bini'aadana loo dilo, xagga minallahi unbuu ka badbaaday inuu kaga gooyi doonayaa lagu leeyahay. lazawaalu dunyaa ahwanu cala allah min ihraaqi dami lmuslim bigayri xaqin buu nabigu yidhi sala allahu caleyh wasalam. adduunyada dhan oo meesha ka baxdo oo la waayo, ilaahay agtiisa waxay kala fududahay buu nebigu yidhi dhiig qof muslim oo xaqdaro lagu daadiya buu rasuulku yidhi. dhiig muslima. dagaal baa la galay, jihaad.
dhinaca mushrikiinta ka soo jeeday baa dhufays ku dhacay. nin ansaariya ku qabtay seeftii. markuu seeftii lagu qabtay u arkay in la hayo ayuu iska yidhi laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah. uu ka daayay markaa ninkii ansaarigii. dagaalkiiba hore ka sii galay. ninkii kalmadan yidhi ee dhufayska ku jiray markuu arkay in laga sii jeestay intuu ka daba tegay buu boqnaha ku gooyay seef. haddana dhufayskiiba ku dhacay. tu kala ku qabtay seeftii. kii kalena markaasuu waa shahaado wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxammadan rasuulullah. uu ka jeestay. kiina qoortuu ka gooyey. usaamata binu zayd baa arkaya allah raalli ka noqday. kolkuu seeftii ku qabtay buu u ashahatay. kama joojina qoortuu ka gooyey usaama ninkii. dagaalkii markuu dhammaaday warbixintii baa nabiga loo gudbiyey calayhi salaatu wasalaam. saadiqu lmasduuq wa qaa'idu ljaysh asagaa markaa loo celiyey warbixintii jihaadkii siduu u dhacay. wixii qaladad halkaa ka dhacayna nebiga waa loo sheegoo la yidhi nin ashahaatay ayuu usaama dilu madaxa kaga gooyey seef. markaaba nabiga wejigiisibaa bedelmay calayhi salaatu wasalaam. yaa usaama aqataltahu bacdama an qaala laa ilaaha ila allah. waaba markuu kelmaddaa yidhi kadib miyaa dishay. markaasuu innahu kaana mutacawidan biha yaa rasuul allah uu ku magangelayey. laba ninoo muslimiinana hortay buu ku dagay uu qoorta kaga gooyey. markaabuu nebigu ku yidhi qalbigiisa intoo dillaacisay maad ogaatay inuu kelmaddaa dhab u yidhi iyo inuu carabka ka yidhi. halkii uu nebigu fadhiyey uu ka kacay cadho darteed. markaasuu usaama nebiga xaynka qabsaday calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yidhi yaa rasuul allah ilaahay dembi dhaaf ii weydii. ilaahay dembi dhaaf ii weydii. markaabuu nebigu ku yidhi yaa usaama maalinka qiyaamaha seed yeeli doontaa markuu ninkaasi banka qiyaama uu la yimaado isagoo kelmaddaa ku celcelinayo le laa ilaaha ila allah seed yeeli doontaa. soo fiirso. waxaan tamaniyey buu yidhi usaamata binu zayd wa xibbi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. isagiiyo aabbihiiba waa labada nin ee nebi maxamed saxaabadiisa ugu jeclaa weeyaan. waxaan tamaniyey buu yidhi maalintaa intii ka dambaysa islaamnimada in lai xisaabin lahaa ayaan tamaniyey. intii ka hore waxba layga soo qaadeenba. kelmaddani waa kelmad culus. ayadaa marka qof